laba qiso oo cajiib ah oo aad isoo jiitay 10 badan laga baran karo ayaa maanta dil wadaaga qisada koowaad madaxweynaha Umar bin Abdulaziz Amirul Mu'minin ayaa habeenada kamid waxa uu imaaday dad dan kale intii lagu jiray shirki iyo dantii ay u imaadeen baa waxa damay nalkii u daarnaa meesha ay ku jireen madaxweynuhu uu istaagay wuxuuna soo sameeyay nalkii dadkii imaada waxay dhaheen maadaama aad madaxweyne tahay in aad istigtay anaga ayaa taa tagno hoosh soo qabanay markaas wuxuu oo maxay iga halaabay anigoo Umar tagay anigoo Umar aan soo laabtay qisada waxaan ka baranaynaa heer walba aan gaarno haddii madaxweyne gaarno haddii CEO gaarno haddii maal iyo mantabad iyo sharaf meel kasto oo ugu sareysa aan gaarno in aan marnaba aan iska weynaysin dadka in aan mar walba dadkeena ku dhex jiro manzilad ka soo aan gaarin dadkeena ku dhex jiro nabiga sallallahu alayhi wasallam waxa uu yiri qof walba oo tawaadu badan ma jiro ilaa qof walba tawaadu Allah ayaa silmariyo sidoo kale cajiibka waxay ahayd ayadana caalimkii weynaa ee Ibn Bas ayaa waxa uu yimid wiil dhalinyaro ah oo 16 jir ah markaas uu yimid wuxuu ku yiri Ibn Bas oo Allah ku barakeeyo waxa fiicnaan lahayd magaalo walba degmo walba in la geeyo culimo u fatwoodo bulshada si ay u wanaagsanaado xiriirka ka dhaxeeyo bulshada iyo culimada oo waliba ay u fududaato culimada helitaankooda Ibn Bas uu ku soo celiyay cunug yar wuxuu ku yiri ma khasna jirtaa cunug wuxuu ku yiri waxaan jiraa 13 sano بس ابن باس waa uu tagay wuxuu amiirkii muuminiinta xiligaas uu u qoray waraaqad wali waraaqadu u qoray waxa uu yiri mid kamid ah naseexayaasha ayaa waxa uu soo jeediyay fikradii uu sheegay halkaas waxaan ka qaadanaynaa si walba ee ilmaha u yirihiin si walba heerkad u yirihay hadii ay noo sheegaan talo wanaagsan in aan ku ciriirin inay da'yihiin waxaan kugu soo dhaweynaynaa sheer xirfad oo ah hoyga barashada xirfadaha casriga sheer xirfad qaybta caafimaadka waxaan kugu diyaariyay koorsooyinka caafimaadka ee asaasiga sida maternal skills course marxaladaha hooyada caafimaadkeeda lagu socon karo koorsada nafaqada nutritionka jirkeena nafaqooyinka u baahan yahay ku baranayno waxa kale oo kugu diyaariyay emergency care qof haduu xaalad degdeg ah galo sida uu caawin lahayn iyo barashada daawada pharmacology linkiga hoose ayaa idin soo dhigayaa koorsooyinka